صاحب walaalkiin afkumaal oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaana bartankeeda maanta ku weydiinayay su'aalo kala duwan oo ah sidee baad u aragtaan safarka uu madaxweynuhu ku tagay dalka jamhuuriyadda dalka Mareykanka marka su'aashaas oo aan weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada Burco ayay ku jawaabeen sida tan sidee baad u aragtaa safarka uu madaxweynuhu ku tagay dalka Mareykanka adeer waxaan u arkaa safarkan ku tagay waa muqaddas Soomaaliland ha noolaato ha jirto awlaadna cadawgana Allah jabiyo awlaadna duniya dabadda Allah jabiyo awlaadna kuwa ooyaya ka imayso waa go'ay markii hore annaga idin keenay haddana annaga idin kala noqonay uf أول سنة ورثة سفركم مدحوينه وكتلي ذلك مرة سفر قاية وكتلي واقع تريتاك السوماليان بوتلي واقع هم بريالينا واقع هم بريالينا سوماليان الدوري مينا وكتلا وانا بريا يجي رجع يجي وانا ميين سومات قرب دقال ما وكو قبصنا باشا سومات قرب مركز كل قول مينا سوماليا كل قول مينا الدوري مينا madaxweynuhu waa hagaagsan yahay kulay dawlado badan bay soo joogto Soomaaliya ka dhacay madaxweynayaal badan la doortay marka qodbada madaxweynaha waxa kamid ahayd mixirkeeda uu lahaa Soomaaliya dib ugu noqon mayno marka fikirkaaga saasaad Soomaaliya dib ugu noqon mayno shan jeer baan doorasho galay shantii jeer waa ku guulaysanay nabadgelyaanu haysanaa ciidankeedii waanu samaysanay geeska Afrika nabadgelyadiisa aanu nahay ku noqon mayno Soomaaliya waa ka raysan safarka madaxweynuhu ku tagay dalka Mareykanka adigu magacaaga ku bilaabay waxa uu Yuusuf Caalbaariya waa gartay Yuusuf madaxweynuhu khudbad wuxuu jeediyay dhinacyo badan taabanayso nuxurkeedu ahaa in aan Soomaaliya iyo Somaliland aan dib u heshiin karin islaayeen yihiin nimanka kala laba dawladood sidoo kale wuxuu sheegay inuu dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland yahay dal yar oo curdin oo isagu iska can qabtay marka khudbad badan ayuu jeediyay dhinacyo badan taabanaysa marka adiga fikir ahaan sidee baad u aragtaa waxaan u arkaa inkaasi kuul keenayo oo wixii allaali wixii Soomaaliland ay la soo dhibay iyo wixii ay soo martay uu sheegay in halka waxaan ka sugayno ka filanaa waxaan ka doonaynaa in loo keeno aqoonsi loo keeno oo marka ay yiraahdaan dalka waan aqoonsanay 30 sanadood ayaanu anagu ismaamuleynay lixdoorasho waan soo marnay sidaasaan nahayo waxa waxaan uga baahanay ma jirto ciidankayagu waa taam lacagtayagu waa taam wax kasta allaali wax kasta waa noo dhin allaali waxaan ka doonaynaa ma jirto in ay adduunyadu aqoonsado oo yiraahdaan waxa weeye dawlad magac leh oo intii calankayga halgal jimciyada qurbaa ka dhaxaysa calankayga laga taago maadsani sida waa wartaan safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka Mareykanka safarka madaxweynaha uu ku tagay dalka Mareykanka waxaan rajaynayaa inuu guul ka soo hooyo iyo aqoonsi waan rajaynayaa inuu ilaahay nabadgeliyo inuu soo celiyo dhamaanteedba shacabka Soomaaliland sida ay nabadgeliyo halkan waxaan ku suganahay oo kula kulanay muruqmaal isla markaana muwaadin reer Soomaaliland oo ra'yigiisa ka dhiibanaya su'aal aan weydiinayno oo ah su'aashaas oo sidee baad u aragtaa safarka uu madaxweynuhu ku tagay dalka Mareykanka sidaan horeba idinku soo sheegay muwaadin ku soo dhawow magacaaga adoo ku bilaabay waxa la yiraahdaa Saciid Cabdullaahi Cabdi Saciidow madaxweynuhu wuxuu jeediyay xaalad hore khudbad dhinacyo badan taabanaysa sidoo kale wuxuu sheegay inaan Soomaaliland iyo Soomaaliya aan dib isugu soo noqonayno oo yihiin laba dawladood oo kala madax bannaan sidee baad fikirkaaga u aragtaa socdaalka madaxweynuhu uu ku tagay dalka Mareykanka iyo riyooyinka badan ee farxadda leh ee muwaadiniinta reer Soomaaliland qalbiyada ay ka wada socdaan waxaan ka qabaano waxa weeyaan Soomaaliland inay xornimadeeda taasoo ah gumaysigeena la qoos baxno waana halka nabad iyo nabadgelyo ku fadhina magaalada Burco gudaheeda waliba halka sekada ayaan ku fadhinaa waxaan
leenahay guul baan leenahay sidaad u hadashay madaxweyne waa wacan tahay hagala kala soo degin sidaa wacan aad yeeshay somalilan xornimadeeda raadi aad baa hormaasantay waa loo arkaa safarka uu ku tegay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan dalka maraykanka adigoo magacaaga ku bilaabayana bismillahi raxmaan raxiim magacaygu kiisa yuusuf maxamed ka tirsan iskaashatada maasha allah gaadiidkii halkan horteeda ka baxaysa waxaan arkaa safarkaa safar iska dalxiisaydii dalkii waxaan kuli waad arkaysaa waxaan kuli qalalaasiya jaawareer baa jira maciishadeed mid siyaasadeed mid dhaqaale dee dalka waa kaasoo waxaan ku jaawareer buu ku jira isaguna dee waxaan kuli waa nin dee iska dalxiis tagay dee maraykan maxaa yaa kaa yaqaan dee kowdhe cid uu soo dhaweynaysa iyo cid waxaan kuli dad calamaan dee soomaaliya meel taagan oo meel somalilaanta ayuu arkay kowdhe iyo afar qof oo meel ka qaylqaynaya dee somalilaanta ma garanaysa cidina may soo dhaweyntii dee dalkii jaawareer ku jira gaadiid baan wadnaa halkaasaan iska dhigna waan dad danyar u shaqayna 10 litirka waa 10 kun shilin kowdhe halkii litir waa 10 kun shilin 5 litir waxaan nagala siiyay 10 kun shilin mar laba jeer haddaan ku baxno shidaalka tayamada waxaan kuli mar labaad mar saddexaad kusoo noqonaysa iyo madaxweynihii dhammaan dalka waxaan kuli iska dalxiistay waa mana baahna waxqabadka uu leeyahay ictiraafka somalilan uu sheegayo horta tan gudaha xalliyo tan gudaha ha xalliyo dadkan ganacsatada dadka shiilaya dee wax ka qabto waa madaxweyne qaran intuu dal kale ayuu leeyahay waxbaan ictiraaf raadinaya ictiraafka halkan baa u baahan dadkan in la safeeyo oo nimankan ganacsatada dalka shiilaya yaa kowdhe madaxweyne dee dalka kusoo noqon leena kowdhe oo dadka dee danyarta hoos u eeg oo dadkii ku doortay ee aad madaxweyne u ahayd dee way baktiyayaan adna lacag milaayiin aad fangaranaysaa aad ku bixinaysaa debadaa iyo maraykan waxaynaan garanayn yaa markaa waxaan leeyahay anigu wuxuu maanka nin iska dalxiistay aad baa u mahadsantahay adoo magacaaga ku bilaabaya sideebaad u aragtaa safarka uu madaxweynuhu ku tegay dalka maraykanka anigu waxa la yidhaha xaamid maxamuud jaamac safarka waa aad iyo aad bal anigu waa sax safarkaas shadanka cadana waxaan leeyahay dadka danyarta hadda laga qabto ganacsayaasha anigu intaasaan kusoo gabagabeynaya aad baa u mahadsantahay halkan waxaa kula kulmay mid ka mid a wiil ku shaqaysta tigaha magaalada burco ka shaqeeya walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya ku soo dhawow axmed maxamed shidaalku lagu qaado magaalada qaalib lagu yaalaguna laba ku baan qaadnaan waxaan qaadi karana maaha waxaan bedelaynaa madaxweynaha maraykanka qabtay inuu awdiisan bayraadsan oo wax ka qabto shaqadiisina u baahan ta kale anaguna 4 kun baan oo dib masaakiintuna ma haysato 4 kun